kulanti wanaagsan halkan waa Garaa TV qodobada warkana waxa ugu waaweyn Somaliland iyo Puntland oo ku heshiiyay burburinta maamulka ICC qaatumo ee dhawaan aqoonsiga buuxa ay siisay dawladda federaalka Soomaaliya iyo arintan oo abuuri karta xaalado dagaal oo markale ka qarxa gobolada Sool iyo Sanaag baarlamaanka Soomaaliya oo maanta isku dhaxfeeray fil Hargeysa iyo kulankii maanta ee golaha oo buuqiyay waxaan ku soo dhamaaday xilli gudoomiye aadan madoobe waji gabax uu kala kulmay mudanayaasha oo mooshin ka diyaariyay beesha caalamka oo cadaadis xooggan ku saaraysa madaxda maamul goboleedyada inuu u hoggaansamaan qorshayaasha filla Soomaaliya iyo James Iswaan oo go'aano adag oo ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka la wadaagay dani qorqor iyo lafta-garan oo maamuladooda ugu tagay filla Soomaaliya oo digniin culus ka soo saartay faafinta fariimaha qalqalgelinta amni ah ee argagixisadu ay ku cabsi gelinayaan bulshada Soomaaliyeed dhiirigelintana waa qawaarijta iyo guddiga doorashooyinka qof iyo codka ah muddo kordhin ku dhawaaqay war cusubna soo saaray kale kulanti wanaagsan qodobadaas daawateen oo faahfaahsanayaan idiin soo gudbin doonaa si soo horeen daawada waxaan ku xasuusinayaa in haddii lagu joogo waqtiga salaada soo gudato waajibaadka leh dibna ugu soo laabay aynu ku bilownaa maamulada Puntland iyo Somaliland ayaa u heshiiyay burburinta maamulka ICC qaatumo ee dhawaan aqoonsiga rasmiga ah ay siisay dawladda federaalka ee Soomaaliya kadib safarkii ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu ku tagay magaalada Laascaanood ee xarunta maamulkaas oo jiritaankiisa si weyn labada maamul bay u diidan yihiin labada maamul ee fadhiyadooda ay kala yihiin Garowe iyo Hargeysa waxa dhax maray wada hadallo iyo qorshayaal hoose oo uga heshiinayaan dhammaan colaadii dhex taalay si loogu jeesto burburinta maamulka ICC qaatumo waxaana labada maamulba ay qaadeen tillaabooyin isku soo dhawaansho abuuraya sida in maxaabiis ay la kala wareegeen iyo sidoo kale ay sheegeen inay ka wada shaqeyn doonaan dhamaynta danaha kale u dhaxeeya wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Den uu hogaamiyay ayaa kadib siideynta maxaabiista labada dhinac waxa uu ku dhawaaqay in farxad weyn ay tahay in Somaliland iyo Puntland oo cidna aysan u dhaxayn maxaabiista ay la kala wareegaan sidoo kale wuxuu sheegay inay ka wada shaqeyn doonaan arrimo badan oo muhiim u ah labada maamul ila waraadyo siyaasadeed oo labada dhinacba ku dhow oo lagu kalsoon yahay ayaa waxay xaqiijinayaan in labada maamul ay isla afgarteen sidii loo qaadi lahaa guluf xooggan oo looga taqalusayo maamulka ICC qaatumo ee Firdhiyo uu hogaamiyo cadaadis ayaana lagu ballamay labada dhinacba inay saaraan maamulkaas si jiritaankiisa meesha looga saaro maadaama deegaanadii labada dhinac hore ay ugu dagaalami jireen ay yihiin kuwa hadda gacanta ay ku hayaan maamulka ICC qaatumo isla markaana ay ka dhax bixiyaan labada maamul ee Puntland iyo sidoo kale Somaliland maamulka Puntland ayaa halis weyn wax u arkaa jiritaanka maamulka ICC qaatumo waxaana Saciid Cabdullaahi Deni uu diiday in uu hambaleeyo maamulkaas kadib marka aqoonsi rasmi ah la siiyay sidoo kale Saciid Cabdullaahi Den wuxuu ku faanay in ciidamada Puntland ay ka dagaalamayaan furimaha hore ay isku hor fadhiyaan ciidamada ICC iyo kuwa maamulka Somaliland ee madaxweyne Cabdiraxmaan Cirre uu hogaamiyo waxa sidoo kale Puntland ay sheegtay in iyadu ay gacanta ku hayso maamulka ICC qaatumo iyadoo xitaa Den uu diidan yahay in xilalka reer ICC ay ka hayaan maamulka Puntland gabi ahaan bay iska casilaan oo wax ka bedel uu ku sameeyay saami qaybsiga siyaasadeed ee maamulkaas dhankeeda Somaliland waxay ku doodaysaa in Sool iyo Sanaag iyadoo maamulkeeda ay leedahay qasabna ay tahay inay dib ula soo laabato iyadoo labada maamul sheegay hadda inay isku afgarteen inay guluf xooggan qaadaan si gabi ahaanba jiritaanka maamulkan meesha looga bixiyo kadibna xaajadu halkii hore ay ku soo laabato oo labada maamul iyadoo sidii hore ay u kala deganaayeen ay dib ugu soo laabtaan deegaanadaas arrintan ayaa qalqal xooggan abuuri karta waxaana ay keeni kartaa dagaalo marka la ka qarxa gobolada Sool iyo Sanaag labada maamul ee Puntland iyo Somaliland dastuurkooda waxa ku qoran in mid walba maamulka gobolada Sool iyo Sanaag isagu leeyahay mar walbana halka lagu dagaalami jiray ayaa ahaa deegaanada maamulkaas iyadoo Saciid Cabdullaahi Den iyo maamulkiisa guuldarro weyn ay u tahay aqoonsiga maamulka ICC qaatumo ee dawladda federaalka Puntland hore waxay ugu doodi jirtay in dhul ballaaran ay haysato isla markaana awood weyn ay leedahay iyadoo ku tashanaysa maamulada gobolada Sool iyo Sanaag waxaase hadda soo koobitaanka deegaanada maamulka Puntland uu maamulo ee ku kooban gobolka Bari Nugaal iyo qaybo ka mid ah gobolka Mudug marka la eego gobolada dawladda dhexe ee wadanku ay aqoonsaneed waxay hoos u dhigi kartaa awoodda maamulka Puntland uu leeyahay iyo sidoo kale baaxadiisa si kastaba waxaa lagu wada hayaa tillaabooyinka xiga ee dhinacyadan ay qaadi doonaan iyo sida dhankeeda ICC ay kaga jawaabi doonto inkastoo dawladda federaalka Soomaaliya arrintan dhankeeda ay ku yeelan doonto maadaama sida la filayo bilaha soo aadan ciidamo fara badan iyo gaadiid dagaal oo culus loo rari doono deegaanada ICC qaatumo halkaasna laga hirgelin doono saldhigyo waaweyn oo ay leeyihiin ciidamada gorgor ee militariga Soomaaliya iyo kuwa booliiska oo amniga xaqiijin doona waxaana tilaabo ay u qaadaan burburinta maamulkan Puntland iyo ICC ay keeni kartaa isku dhacyo xooggan iyo in dawladda federaalku dhankeeda si adag ay uga hortagto qorshaha iskaashi ee labadan maamul oo aan isjeclayn isla markaana marar badan dagaalo culus ay dhax mareen ay ugu heshiyeen ka taqalusitaanka maamulkan curdanka ah ee dhawaan aqoonsiga buuxa la siiyay
qaybihii hore warka garaatiifa ay daawanaysaan. baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxay isku dhex feereen xarunta Villa Hargeysa iyadoo buuq iyo sawaxan uu ku soo dhamaaday kulan xasaasi ah oo maanta xildhibaanadu ay iskugu yimaadeen xilli toddobaadyadii la soo dhaafay fadhiyada baarlamaanka ay u furmi waayeen sababo la xiriira mooshinka culus ee laga diyaariyay. gudoomiye Aadan Madoobe oo xildhibaanadu ay ku kaceen ilaa 100 xildhibaanna mooshinkiisa ay saxiixeen. mudanayaasha ayaa maanta kulan iskugu yimid waxaana kulankan gudoominayay Sheekh Aadan Madoobe oo ay garbihiisa ka maqan yihiin ku-xigeenadiisa waxaana kulanku ku bilowday buuq iyo sawaxan iyadoo xildhibaanada mucaaradka iyo kuwa muxaafadka isku dhex feereen xarunta Villa Hargeysa isla markaana dagaal adag uu halkaas ku dhex maray. arrintan ayaa keentay in kulanku uu furmi waayo isla markaana xildhibaanadu waxay ku oriyeen gudoomiye Aadan Madoobe ay u diideen in fadhiga uu gudoomiyo iyagoo ku tilmaamay inuu ku fashilmay gudoominta baarlamaanka iyo wadista kulamada xildhibaanada. Sheekh Aadan Madoobe khudbad iyadoo xildhibaanadu ay ku qaylinayaan uu jeediyay waxa uu ku sheegay inuusan garanayn waxa xildhibaanadu ay ka cabanayaan isla markaana haddii uu weydiiyo uu fahmi waayey tabashada ay qabaan mudanayaashu isagoo ka dalbaday xildhibaanada kale inay soo ogaadaan waxa tabasho ah ee ay tirsanayaan xildhibaanada buuqa iyo fuudada ka dhaliyay kulanka. sidoo kale gudoomiye Sheekh Aadan Madoobe wuxuu sheegay in tilaabo kasta xal loo heli doono isla markaana la dejiyo buuqa iyo sawaxanka isagoo xildhibaanada mid uga codsaday inay fariistaan isla markaana sawaxanka ay yareeyaan. hase yeeshee codsigiisa waxba lagama soo qaadin oo kulanka ayaa buuq qaylo fawdo feer iyo sidoo kale isku tuuriyeynta caagadaha iyo sidoo kale mikrofoonada ku soo dhamaaday. tani waxay muujinaysaa sida baarlamaanku iskugu bedelay goob fawdo iyo meel aysan ka socon shaqadii loo igmaday ee ahayd matalaadda shacabka iyo sidoo kale hagitaanka waddanka xilligan adag ee Soomaaliya ay ku jirto. baarlamaanka waxaa hor yaalay qorshayaal waaweyn oo ay ka mid tahay meelmarinta amaba dhamaystirka qorshaha doorashooyinka qof iyo codka ah iyo sidoo kale meelmarinta cutubyada hore ee dastuurka kaasoo hadda ay qabyo yihiin 11 cutub oo ka mid ah waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilligu uu furayay kalfadhigan uu ka dalbaday mudanayaasha in kalfadhigan muhiim uu yahay isla markaana lagu soo dhamaystira arrimahaasi waddanku doorasho qof iyo cod u aado dastuur dhamaystiranna Soomaaliya u yeelato oo qabyo qoraalka looga baxo. waxaa muuqata dhammaan arrimahaas oo dhan in meel la iskaga tuuray gudoomiye Aadan Madoobe hadda diiraddu ay saaran tahay iyadoo xildhibaanadu ay ku dhawaaqeen inay ka taqalusi doonaan Aadan Madoobe oo gebi ahaanba xasaanada ay ka xayuubin doonaan. maalmihii la soo dhaafay cabsi Aadan Madoobe uu ka qabo in mooshin loo qabto isla markaana xilka laga xayuubiyo ayay fadhiyadu u socon waayeen. waxaa sidoo kale la aaminsan yahay in sababta uga soo tagay Sheekh Aadan Madoobe ku-xigeenadiisa ay tahay cabsi uu ka qabay in ay qabtaan inay mooshinka ka qabtaan xildhibaanada 100 ka badan ee saxiixay isla markaana sidaas xasaanadiisu ku waayo. Villa Soomaaliya dhankeeda waxaa dadaal xoogan ay gelinaysaa kala furfuridda xildhibaanada iyo in la damiyo mooshinkan culus ee ka yaala Sheekh Aadan Madoobe. Aadan Madoobe marka laga soo tago sidoo kale waxaa ka mid ah xubnaha xildhibaano badan ay carada ka qabaan mooshinadana ay ka diyaariyaan ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. in Sheekh Aadan Madoobe iyo Xamse Cabdi Barre laga taqalusana waxaa dhabarjab xoogan ay ku tahay siyaasadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. si kastaba waxaan la ogeyn sida ay ku sii socon doonaan fadhiyada baarlamaanka iyadoo fadhigan furitaankiisa uu ku soo aaday xilli xalay warqad ka soo baxday xafiiska Sheekh Aadan Madoobe lagu sheegay inuu ka laabtay Aadan Madoobe xasaanadka xayuubintii xildhibaan Abiib oo markii horeba buuqan iyo foodadan iyadoo ay ka soo bilaabatay taas uu arkay inay dejin doonto mudanayaasha sida weyn kaga carooday tilaabada uu qaaday hase yeeshee waxaa xaaladda u muuqata in halkeedii iyo halkii si shashaysa ay joogto oo xildhibaanadan ay ku adkaysanayaan si kastoo ay noqotoba inay ka taqalusaan gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. marka la eego waxa ka dhacaya fadhiyada baarlamaanka tani waxaa rajo xumo weyn ay u muujinaysaa bulshada Soomaaliyeed iyadoo banaanka keenaysa sida xildhibaanada badankooda aysan u ahayn kuwa matalaadooda ka soo dhalaalay amaba aysanba u aqoonsaneen mas'uuliyadda adag ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed ee indhaha ay u yihiin. dhanka kale waxa arrintan ay ku soo aadaysaa iyadoo dalku xaalad dagaal uu ku jiro isla markaana baarlamaanka ay hor yaalaan ajandayaal waaweyn oo wax ka qabashadoodu muhiim ay tahay sida taageerada iyo sidoo kale xoojinta dagaalka argagixisada dalka looga ciribtirayo ka shaqaynta arrimaha doorashooyinka jahaynta xaaladda siyaasadeed ee dalku aad u cakiran iyo sidoo kale u qarimidda xaaladaha adag ee dalku wajahaya ee qaybta ay ka tahay abaaraha iyo in Soomaaliya dhaqaale ay u leedahay xilligan howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee USOM iyadoo dhammaan ajandayaashaas ay jiraan ayay xildhibaanadu ku mashquulsan yihiin danahooda gaarka ah iyo sidoo kale inay isku dhex ciriirsadaan xarunta Villa Hargeysa arrintan oo ceeb ku ah mudanayaasha xasaanada shacabka huwan. qaybihii dhexe warka garaatiif ayaa daawanaysaan. beesha caalamka ayaa cadaadis xoogan waxay ku bilowday madaxda maamul goboleedyada dalka iyadoo ku qasbaysiin u hoggaansamaan qorshayaasha dawladda federaalka Soomaaliya